waxaa dhowaan la magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdullaahi Xasan. Magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismari weysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir kuwaas oo isku haystay cidda qabanaysa xilkaas. Mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku dayay in khilaafkan ay xaliyaan, waxayna ganacsatada ay ka codsadeen in ay xal yimaadaan booska banaana ay ku buuxiyaan qof ay heshiis ku yihiin. Mid kamid ah ganacsatada Muqdisho oo la hadlay idaacadda VOA ayaa xaqiijiyay in wax yar kadib markii ay dowladda ka codsatay ganacsatada inay qof ku heshiyaan in ay al-shabaab u yeereen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. Inkastoo qaar kamid ah ganacsatada ka cudur daarteen, qaar kalena ay wakiilo darsadeen, waxaa la isugu tagay meel kamid ah gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ay joogeen muddo 2 cisho ah iyagoo dood iyo wada hadal dheer kadib loo sheegay laguna wargeliyay in ay aqbalaan in gudoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdullaahi Xasan. Inta badan ganacsatadii arrintan isku dayay in ay VOA ka wareysato ayaa badankood xogo isku mid ah bixiyay, haddana cabsi xad dhaaf ah oo dhinacyada ammaankooda ah ay qabeen. Mid kamid ah ganacsatada oo sabab xagga ammaanka ah dartiis magaciisa u qariyay oo wareysi siinayay idaacadda VOA gaar ahaan barnaamijkeeda bandhiga ayaa ugu waramay sida al-shabaab ugu soo qanciyeen ganacsatada in ay isku raacaan magacaabista gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir, waxaana uu yiri sida tan: qolo ganacsatada kamid ah dacwatay dhulkaas shabaab ku dacwatay u bandhigtay dadkii caqabada meeshan ka jirta. waxa ay weliba ku andacoonayeen ku dacwoonayeen dhinaca dowladda kale ka qabtay in waxa waaye warkooda kaliya meeshan laga tixgelinayo ayuu ganacsatada waaweynada warkooda la maqleeyay. sabab dacwadii markii ay tageysteen kadib qaabka arkeen ayaga ay go'aansadeen in labadan gobol ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan bishan ay ka saaraan. 17 bishii December ee sanadkii dhamaaday 2019 ayaa wuxuu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ku dhawaaqay in uu magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir. VOA ayaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed weydiisay waxa ka jira in al-shabaab ay u soo gudbiyeen gudoomiyaha uu dhawaan magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir, waxaana uu yiri sida tan: gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhisnay oo ka kooban 6 qofood oo ah gudoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo xoghaye guud iyo shaqin kamid ah ganacsiga guud ah. mana aan wax anagana la yeelay wax muddo 3 sano ayuu banaanaa xilka gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir. haddii si sharci ah Allah una xariisto si uga dhintay ka dambeeyay shaqinta xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobolada masala ay ka banaanay xaaladaas muddo dheeraan marka xoogaa culays ka jiray. hadda waxaan moodaa marka al-shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyay canshuur ka qaadayeen badeecadaha ka soo dega magaalada Muqdisho, waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka. balse hadda waxay ganacsatadu walwal ka qabaan in ay al-shabaab isku sii balaariyaan dhinacyada maamulka. waxaa jira isbedelo maamul iyo magacaabiso dhowr ah oo la sheegay in ay sameynayeen al-shabaab. ganacsato kala duwan oo la hadlay idaacadda VOA ayaa u sheegay xogo dhowr ah oo ku aadan saameynta ay hadda al-shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda. kama tirsaneen baydiyay calaaq la soo qaadayay waxaa lagu dhaqarinayay baaliidka maaha nin suuqleeya ama nin ganacsi ama nin ahlul cilmi waa ganacsi oo lagu yaqaano ma uusan ahayn. hadda markii la magacaabayo waxa uu ka yimi Harbeer 4 bilood ka hor Harbeer joogay. hadda dadkii u dhawaay oo saaxiibada la ahay meesha kala laayeen markii ilaahay xalal u magacaabaya la shaqeeya waxa ay ahayd Harbeer joogay. sidoo kale waxaa jira cabsi weyn oo ay ganacsatadu ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan, gaar ahaan canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda al-shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo gudiyada ganacsiga. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee qaranka Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo VOA weydiisay waxa uu ka ogyahay magacaabista gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhisnay oo ka kooban 6 qofood oo ah gudoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo xoghaye guud iyo shaqin kamid ah ganacsiga guud ah. mana aan wax anagana la yeelay wax muddo 3 sano ayuu banaanaa xilka gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir. haddii si sharci ah Allah una xariisto si uga dhintay ka dambeeyay shaqinta xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobolada masala ay ka banaanay xaaladaas muddo dheeraan marka xoogaa culays ka jiray. hadda waxaan moodaa marka gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee qaranka Maxamuud Cabdikariin Gabeere oo ay VOA weydiisay waxa uu ka ogyahay magacaabista gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir ayaa yiri sida tan: asbir aadan boqol lama qancin karo, laakiin inta badan waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah markasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan arrimaha ganacsiga gobolada maamul goboleedyada waxaa markasta maqan kursiga rugta ganacsiga gobolka Banaadir.
marka waxaan isku daynay in si consensa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay mudday waleen 6 bilood loo fadhiyay aakhirkii waxaa ka dhashay marka anagoo markaas aan la kaashanayno aan la xallo caqdiga ganacsiga gobolka banaadir helitaankeenaan inay nagu raacaan kadibna xaflad weyn loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki kartaa xafladaas sida ay tahay. sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada gobolka banaadir ayaa VOAda u xaqiijiyey in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwo xiran dad gaar ah oo aan qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin iyo hanjabaad uga imaanayso al-shabaab. mid ka mid ah ganacsatadaas oo wareysi siiyey VOAda ayaa sheegay ganacsato ahaan maanta weelku waa ziyaado maanta qofkii gobolka banaadir ku nool iyo shabeellooyinka dareemi karo maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax badliga soo bandhigi kartaa ma ay jirto maanta sandahi adiga aan leeyahay inaa xayeysiiso waa ku samayso in ummaddeeda aqoonsato oo wax la macaamilaan oo wax soo dataan xataa ma ay jirto maalin alaalamaanki dareemiinka banigaaga hore u dhaqaaqaayo qola isaga ku daadsan islamarkii dadkaada muhiimadaada keenayso inuu kambani weyn meeshaan kasoo socdo islamarkii waxaa ku qasbantaa adigan in lagaali yeero duurka welibana hadalkooda aa jiibso inta badan aatag maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraahaan annaga idinsan amreena qolo walbana dhaqangal waa warkeena iyo sawirkiisa kala celi in gudoomiyaha cusub uusan ahayn mid horay ganacsiga ugu jiray islamarkaasna uusan lahayn aqoon weyn balse ganacsato kale ayaa sheegay in uu ganacsiga kasoo galay dhanka iibinta gaadiidka. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan oo VOAda uga hadlay hanaanka iyo magacaabista ay ku timid ama qaabka loo magacaabay ayaa yiri sida tan aad baa u mahadsan tahay aniga magacaabistay waxay ku timid gudoomiyaha ganacsiga qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay magacaabistaas tala dheer ay ku timid oo ganacsatada gobolka banaadir iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed loo sameeyey tashiga sidaas ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin waxaan la magacaabanahay gudoomiye ku-xigeen labaad mid saddexaad shaqaale guud maaliyad lixdaas ayaan tiim ka nahay sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay. wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga ayaa ka gaabsatay inay ka hadasho waxa ay ka ogtahay magacaabista gudoomiyaha cusub ee gobolka banaadir iyo saameynta al-shabaab. marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka ah ee ka dhanka al-shabaab ma jiro dagaal toos ah oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa Amisom hadda kula jiraan al-shabaab waxaana dad badan oo faaqida arrimaha ammaanka ay sheegayaan in sababtaas ay tahay in ay al-shabaab dhex galaan hay-adaha dowladda iyo kuwa bulshada isla markaas ay saameyn ku yeeshaan sida uu qabo taliye hore ee hay'adda NISA Cabdullaahi Maxamed Sambalolshe. magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya aad ayaa loo hadalhayay in shabaabku markii horeeto ay ku xooganaayeen meelaha reebiga ama magaalooyin ka baxsan focuskana markii hore ama ay dowladda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka baadda ah si badan oo aan toos ahayn hadda waxay muuqataa marka authoritygoodii ama awoodoodii badbaneed inay formal ka dhigaan ay rasmi ka dhigaan awal informal ay ahaan jirtay sida maalmahan la sheegayo waxaa la sheegayaa meelaha qaarkood in ay si toosa dadka ugu soo magacaawdeen ama talabtooda lagu magacaabay natiijadu waxay tahay in la leeyahay dowladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baahay waaye ama haddii si ka warqabin indhaha ay ka qabsanaysaa. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii la soo dhaafay la kulmay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish. kulankaas ayaa waxa ku heliyay qaar kamid ah ku-xigeenadiisa iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed. gudoomiye Cumar Finish oo wareysi siiyay VOAda ayaa ka hadlay waxyaabihii ay ka wada hadleen gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka banaadir iyo sida uu u arko eedaha sheegaya in ay al-shabaab ka dambeysay magacaabistiisa. waa la kulanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka banaadir guddigooda cusub anagu ma aqoonin ganacsatada gobolka banaadir oo way cusubahayaan balse waxaa iskaaga baray guddiga ganacsatada Soomaaliyeed gudoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barka ama rugta ganacsiga gobolka banaadir islamarkaas inay iskaanbari doonaan ii sheegeen waxay ahayd marka isbarkii ayay ahayd isniinta kulankaasu
marka shakhsiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanan garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka banaadir xubnaha lagu magacaabay. marka kuwaan garanayay ibrahim shaamo waa kamid ahaa oo hotel shaamo iskale. gudoomiyaha aqoonin lisaq lagu magacaabay. marka intaasaan ka sheegi karaa in gudoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka banaadir uu xiriir la leeyahay al-shabaab. anaga yani nasiibdartaasu waxaan anagu ogeyn ama isaguho aan ka helin ma jirin. marka dhihi karno mana dhihi karno al-shabaab. marka hay-adaha shaqada leh howlahaas ayay u talaan. mid ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho ayaa VOA-da u sheegay inay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee al-shabaab ee dhinacyada maamulka ganacsiga iyo canshuuraha. ganacsadahan oo magaciisa qariyey codkiisana la bedelay ayaa yiri sida ka ganacsato ahaan maanta weelku waa ziyaado. maanta qofkii gobolka banaadir ku nool iyo shabeellooyinka dareemi karo. maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax badli aa soo bandhigi kartaa ma ay jirto. maanta kambani adiga aa leedahay inaa xayeysiiso waa kusamayso in ummadii ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo wax kaa gataan xataa ma ay jirto. maalin alaalamaan dareeminka banigaaga hore u dhaqaaqaayo qola isaga ku daadsan islamarkii dadkaada muhiimadaada keenayso inuu kambani weyn meeshan kasoo socdo islamarkii waxaa ku qasbantaa adigan in lagaala yeero doorka welibana hadalkooda aa jiidso inta badan aa tagto. maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraahaan maya aysan amreena qola walbana dhaqangooda uga keeno iyo sawir kasoo socdo. ismariwaaga iyo khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaar u arkaan inay fursad u siisay al-shabaab inay ballaariso saameynteeda. waxaana taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka al-shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta sii fidaysa ee al-shabaab. sideedaba waxay tahay shabaabka waa cadow. horta in laga adkaado unbaa wax looga qaban karaa, in lala dagaalo unbaa wax looga qaban karaa. in kulligoon hadda annaga unbaa isku muuqna ayagu noo muuqdaan inay ayaga cadowkoo yihiin, inay cadowga koowaad yihiin. dadka oo dhan go-aan dawladeed ay tahay, go-aan umadeed ay tahay, go-aan shaksi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtidkooda iyo la dagaalankooda. oo dagaalkooda waa luusiyiso waa jilicsan hadda la xoojiyo waa la muraan. doctrinka ama mindsetka dawladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay soo jeehaan shabaabna waa in la bedelo. oo dadkan waa kansar, waa cudub dad marnaba la aqbali karo, nala noolaan karo ma aha. annaga haddaan rabnaa isku soo jeesina horta ayaga inaan ku jeesano iyo rigelintooda ama iyo diiladoodana hoos u dhici maysa anla kababilisigooda ama awoodooda milatari la wiiqo. marka hadda xilli oo laga shaqayn karo dawladda la joogto, xilli focuska la saari karo in military ahaan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yani awoodooda milatari hoos loo dhigo. kadibna midooda dhaqaale iyo tooda waxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo ayaga aqbalaada ka dhexaysa ayaa yaraanta. dad badan oo arrimaha al-shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameynta al-shabaab ay sii ballaaranayso, haddana al-shabaab lafteeda ay ka soo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin koox u dagaalamaysa difaaca diinta islaamka. waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaalo iyo awood raadis ah. waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fikirkii xagjirnimada ee ay islaamku ku gambanayeen uu hadda usoo xoobsiibtay mid dhaqaalo doon ah. waxaana ay sheegeen in hadda kadib ay adkaan doonto in ay helaan dhalinyaro dambe oo ay fikir diini ah kusoo jiitaan.